oo ay tahay bisha December 23 oo maalin talaado ah sanadkuna uu yahay 2025 waxa aan maanta bixinayaa warbixin guud ee doorashada dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho waxa garbahayga taagan ururada tartami doona tartanka soo socda ee bisha December 25 Khamiista ah dhexmari doona oo 20 urur ah waxaan rabaa maanta inaan warbixin guud ka dhiibo hawlihii doorashadu meesha ay maanta marayaan insha Allah taala marka ugu horeysa maanta waxa xirmay qaybintii kaararka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka diiwaan gashanaa gobolka Banaadir nambarka rasmiga ah ee kaararka qaatay inaan shaacin doono official u shaacin doono inta nambar ay qaadatay kaararka codbixinta oo ah dadka sida rasmiga ah u imaan doona inay qayb ka qaataan doorashada soo socotay golaha deegaanka gobolka Banaadir waxa kaloo maanta ku eg campaign-kii ururada oo ah ururadu inay maanta taa maalinkii ugu dambeeyay ay official u campaign gareyn waxay bari waa Arbaco waa Nasiino iyo subaxa Khamiista ah oo loo dareeri doono codbixinta golaha deegaanka gobolka Banaadir maalinta codbixintu campaign ma jiro maalinka ka horeysana campaign ma jiro saal ajligeed maalinkaasi line dheer waxa loo gali doonaa in dadku ay codkooda u codeeyaan oo ay waajibtaa inay haystaan kaarka codeynta oo ah kaarka rasmiga ah oo la siiyay muwaadinka Soomaaliyeed is diiwaan galiyay chance u helay inuu qaato kaar bixintii socotay ku dhawaad 2 bilood maalinka Khamiista waa maalin la rabo insha Allah taala in dadka Soomaaliyeed ay fursad u helaan gaar ahaan ku nool gobolka Banaadir inay si free and fair ah una codeeyaan insha Allah taala waxyaabaha maalinkaas muhiimka waxa kamid ah magaalada Muqdisho waxa socon doona dadka codeynaya insha Allah taala in dadku ay yihiin bandow ama dadku ay taan guriyaha joogaan dadku waa baxayaan waa codeyn doonaan waxaan sameeynay degmo kasta waxaan ka dhignay seejooyin ama meelo laga codeeyo oo fudud 500 oo mitirba waxa yaala meel loogu talagalay dadku inay fursad u helaan inay ku codeeyaan saal ajligeed waxaan ku dhiirigelinayaa ku boorinayaa dadka Soomaaliyeed ee kaararka helay in goobo ku filan ay haystaan oo maalinka iyada ah degmo kasta ay ku taalo goobo dadku ay u gali karaan access ay ku galaan ay ku codeyn karaan insha Allah taala maalinka iyada ahi waxa shaqada guud ee doorashada maamulaya gudiga madaxa banaan ee doorashada qaranka waxa amniga sugi doona oo amniga mas'uul ka noqon doona hay'adaha amniga waxay ka amar qaadan doonaan gudiga doorashada especially gudoomiyaha gudiga doorashada walaalayaal maanta waxaan rabaa inaan warbixin kooban idinka siiyo xaaladda guud iyo sida guud ee degmooyinku ay kala yihiin iyo xaaladahooda guud number 1 16 degmo ee gobolka Banaadir waxa ku tartami doona 20 urur siyaasadeed oo soo gudbiyay murashaxiintooda guud ahaan murashaxiinta ay soo gudbiyeen ururada siyaasaddu waa 1604 murashax 77% waa rag oo ah 1243 murashax 23% waa dumar waa 361 murashax oo dumar ah dadka murashaxiinta da'doodu waxay u dhaxaysaa 20 sano jir ilaa 35 sano waa 69% 35 ilaa 50 sanana waa 23% 50 ilaa 65na waa 8% ururka Karama wuxuu soo gudbiyay 230 murashax wuxuuna ka tartami doonaa 16 degmo ururka Ramaas wuxuu soo gudbiyay 215 wuxuu ka tartami doonaa 16 degmo ururka Cadaaladda iyo Wadajirka wuxuu soo gudbiyay 390 murashax wuxuu ka tartami doonaa 16 degmo ururka Tawfiiq wuxuu soo gudbiyay 222 murashax wuxuu ka tartami doonaa 16 degmo ururka Sincad Sinaan iyo Cadaalad waxa uu keenay 215 murashax wuxuu ka tartami doonaa 16 degmo ururka Horumar iyo Midnimo Qaran wuxuu keensaday 87 murashax wuxuu ka tartami doonaa 16 degmo ururka Madalsan wuxuu soo keenay 105 murashax wuxuu ka tartami doonaa 13 degmo ururka Saab wuxuu keenay 55 murashax 14 degmo muwaadiniinta Soomaaliyeed waxay soo gudbiyeen 24 murashax waxay ka tartami doonaan 13 degmo
horyaal qaran wuxuu keenay 20 murashax wuxuu ka tartami doonaa 11 degmo cadaaladda iyo midnimada tiir 10 degmo 10 murashax uu keenay wuxuu ka tartami doonaa 7 degmo ururka midnimada shacabka wuxuu keensaday 4 musharax wuxuu ka tartami doonaa 3 degmo ururka socod wuxuu keensaday 7 wuxuu ka tartami doonaa 4 ururka dadka Soomaaliyeed wuxuu keensaday 8 wuxuu ka tartami doonaa 7 degmo ururka dawlad wanaagga Soomaaliyeed wuxuu keensaday 3 murashax wuxuu ka tartami doonaa 2 degmo ururka qiimo qaran wuxuu keensaday 2 murashax wuxuu ka tartami doonaa 2 degmo ururka qaranka ee dimuqraadiga wuxuu keensaday 1 murashax wuxuu ka tartami doonaa 1 degmo ururka Soomaalinimo wuxuu keensaday 1 murashax wuxuu ka tartami doonaa 1 degmo ururka qaran soor wuxuu keensaday 1 murashax wuxuu ka tartami doonaa 1 degmo xogta murashaxiinta iyo degmada Shingani waa category B waxaa kuraasta taalla waa 21 kursi waxaa u tartamaya 79 murashax degmada Xamarweyne waa category B waxay taalla 21 kursi waxaa u tartami doona 89 murashax degmada Boondheere waa B waxaa taalla 21 kursi waxaa u tartami doona 87 murashax degmada Shibs waa B waxaa u tartami doona 74 murashax degmada Xamar Jajab waa B waxaa u tartami doona 95 murashax degmada Waaberi waa B waxaa u tartami doonta 100 murashax degmada Cabdulcasiis waa 21 kursi waxaa tartami doona 83 murashax degmada Kaaraan waa A waxaa taalla 27 kursi waxaa u tartami doona 115 murashax Hodan waa A waxaa taalla 27 kursi waxaa u tartami doonta 127 murashax Yaaqshid waa A waxaa taalla 27 kursi waxaa tartami doona 132 murashax Daynila waa A waxaa taalla 27 kursi waxaa ku tartami doona 132 murashax Daynila waa A waxaa ku tartami doona waxaa taalla 27 kursi waxaa ku tartamaya 100 murashax Hawl Wadaag waa A waxaa taalla 27 kursi waxaa ku tartami doona 105 murashax Warta Nabadda waa A waxaa taalla 27 kursi waxaa ku tartami doona 99 murashax Wadajir waa A waxaa taalla 27 kursi waxaa ku tartamaysa 113 murashax Darkeenley waa A waxaa taalla 27 kursi waxaa ku tartami doonta 119 murashax Heliwaa waa A waxaa taalla 27 kursi waxaana ku tartami doona 87 murashax riboodka isaga ahi waa kii ugu dambeeyay ee guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranku ay soo saareen maanta annaga oo aan u qaybinay dhammaan ururada 20 gaarahaya riboodkaas siinay waxaan rabaa caawa inaan uga faa'iideysto fariin adag oo culus oon raba inaan u jeediyo shacabka Soomaaliyeed walaalayaal dadka Soomaaliyeed waxay maanta haystaan fursad qaali ah waxaan haysanaa fursaddii ugu muhiimsanayd ee na soo martaa in ku dhawaad 60 sano ah waxaan bilownay ururadii inaan diiwaan gelino waxaan bilownay inaan haddaanahay guddiga madax bannaan doorashada qaranka aan shacbiga diiwaan gelino waxaan bilownay shacbigii aan diiwaan gelinay inaan siino kaararkii waxaan maanta maraynaa kaararkii aan bixinay inaan maalin kadib dadka jaanis u siin inay codeeyaan waa fursad qaaliya waa fursad aad xaq ugu leedihiin dastuurka Soomaaliya inaad codeyn kartid lagu codeyn karo